sida laba socotaan week walba marka lacagaha falanqeysanayna waxa ka soo bilaabnaa waxa loo yaqaan lacagta DXY lacagtan DXY waa idin sheegay waa beer kaliya suuqa hadii uu jahan leeyahay ayadana jaha yeelata haduu suuqa jahan lahayna ayadana jaha ma yeelanayso ayada hadii jaha lahayn suuqa maalinkaas jaha saxan ma lahan oo meel looga faa'iideysto ma lahan okay marka waxa sameeynayna ishak waxa ka bilaabayna lacagta DXY marka aniga week waxa sameeynaa lacagaha trade-ka marka week ka bilaabayno sida labada socotaan waxa sameeynaa week marka trade analysis bilaabayno almost waxa isticmaalnaa waxa loo yaqaano horizontal ray line iyo aniga waxa isticmaalnaa ay trade line wax kale oo suuqaas u isticmaal ma no indicator no support resistance no wax kale almost waxa isticmaalnaa waxa loo yaqaano ray line iyo waxa naqaana waxa loo yaqaano inta kale price action ka waa suuqa patterns-ka iyo wax go'aamina suuqaas jihadii u socdo in kale almost meesha ka ogaanaa sida laba socotaan hadda week marka joogno meeshan suuqa halkan laga soo celiyo trade-kan DX soo u jeedin double top kaas waaye isla markaas waxay sameeyay impulse soo dhacay correction dhacay impulse kala dhacay maxaa filaynaa marka waxa filaynaa in correction kale uu dhaco kadibna double bottom kaas hoose oo nagala soo gaaro waa halkan wax markii loo joogno weekly waaye hadii aad mar walbana waxa isticmaalaynaa marka suuq analyze gareynayna waxa loo yaqaano MTF oo ah multi time frame ina isticmaalno ka soo filaano HTF ka bilaabno oo high time frame ina ka soo bilaabno low time frame ay geeyno ilaa 15 minutes ina suuq ku analyze gareyn karno marka almost inta time frame ay isticmaalno waxa ugu horeeya week day-ga 4 hour 1 hour iyo 15 minutes intaas waxa u isticmaalna suuq ina ku falanqeysano okay maxaa inoo xigo marka waxa ogaanay suuqa jihadiisa waxa ka ogaanay meesha u socdo waxa waaye weekliga waxa ka ogaanay suuqaas inuu halkan sameeyay taabashiis inuu soo dhaco halkan inuu imaado kadib la celi kadib toos u soo daato okay hadii aan imaano waxa loo yaqaan time frame ka day-ga time frame ka imaano waxa sameeynaa waxa waaye hadii aad idinka tirtiro waxaan oo kale almost waxaan dhahnaa idinka tirtiro ama hal mar delete kay maxaa sameeynayna marka suuq halkaas oo inoo marayo suuq oo halkaas uu yahay day-ga marka waxa sameeynayna suuq waxa fiirinaa meesha ugu sareyso suuqa uu noo joogo iyo meesha ugu sareyso suuqa noo joogo okay halkaas waxa ku ogaanay suuqan meesha ka imaaday meesha u socda hadda helayna sababtoo ah meeshan suuq inoo ka baxay oo impulse waali inta ku tagay halkaas oo high momentum ah oo halkan hadda impulse kale laga soo bixiyay halkan inoo correction ka dhacay halkan inoo impulse kale soo dhacay halkan waxa u jeednaa inoo dhacay wax kale loo yaqaano correction kale oo saas oo kale inoo dhaco oo kadibna double bottom ka sidaas suuqa lagu gaaro DXY marka maxaa ka suganayna weekii horena hadii analyze-kayga la socoteen waxa sameeynaa DXY waxa u falanqeysanay in the same way as mentioned correction kan 2 more week inoo qaata laga yaabo ah weekii hadda waxay sameeyay halkaas ay mareysay halkan ilaa halkan labadan dhaqaaqa dhacay weekana laba dhaqaaqa inay sameeyso weekana laba dhaqaaqa kadib suuqay oo double bottom ka sidaas la soo aadiyo maxaa ka possible ah leenahay DXY hadii aad trade line halkan soo saarno oo halkaas ageeno maxaa arkaynaa halkan 1 2 taabasho sidoo kale maxaa sugaynaa taabashadii kale oo halkan oo lagu soo taaban lahay trade line keena oo ah in lagu soo taabto correction kaas isla markaasna suuqii u sii socdo waxa loo yaqaano inuu taas noo sameeyo oo halkaas markuu gaarayna taas noogu soo daato all the way down oo halkaasna akaasna waxa loo yaqaano laba double button kadibna suuqii meesha rabo u socdo taas waa ka macquul maxaa kaloo ka macquul ah dhigi karnaa DXY waxa kaloo ka macquul maadaama meeshan aan u jeedno waxa loo yaqaano marka 4 hour oo kala tagno 4 hour marka tagno meeshan waxa u jeednaa waxa loo yaqaan descending channel u jeednaa oo ah suuq mar alaal markuu descending patterns-ka ina xogaa fahantina fila oo ah sababtoo ah descending-ka iyo suuq markuu impulse ku socdo oo trend line-ka impulse lagu yimaado that means correction inuu galo kadib sii daato laakiin suuq markii descending lagu sheego waxa suuqa ku soo socday waa correction wada miiran descending channel hoos oo ka dhaca kadibna suuq wuxuu celiyaa kor u celiyaa okay suuqan descending kan laba mid oo noo sheega descending channel ka meeshan yaala laba mid oo noo sheega laba mid oo noo sheega waxa waaye kow suuqa inuu sameysano waxa loo yaqaan middle section waxa la jiro ah suuqi marka correctionkiisa oo dheereysarabo saddex taabasho inuu sameeyo oo rabo descending ka soo bilawdo oo halkan ka soo bilawda kadibna saas la geeyaa kadibna halkaas la geeyaa kadibna saas markii la all the way down inuu suuqa saas sameeyo oo double bottom-kii mar walbo double bottom-kaas ka sugayna suuq inuu sameeyo waa high probability-ga in ka sugayna DXY maxaa ka possible marka suuq marka falanqeynaa laba jiha u falanqeynaa oo ah suuqan maxaa possible oo dhici karo suuqan maxaa ishak oo ugu saxan oo ka dhici karo oo probability markii loo fiiriyo okay waxa possible oo ka dhici kara hadda arabna inaan ogaano wixii oo laakiin ka rabnay oo high probability inuu ahayd waa inuu noo sameeyo waxa loo yaqaan impulse-gaana soo dhacay suuq sidoo kale waxa ka ogaanaysa inta maxaa soo dhacay impulse oo momentum fiican laha soo dhacay dhaqaaq fiican soo sameeyay okay halkan maxaa lagu jiro ogeedeenay tawiga lagu jiro large correction kaas waqti badan lagu jiro large correction kii anoo ka sugayna taabashii saddexaad moos noo sameyn uu soo daatay isla markaas maxaa soo dhacay high momentum kala soo dhacay high momentum kan kala soo dhacay muxuu kale ku sheegaa
inay haddana samayso saas oo kale kadibna double buttonkaas ay si nadiif ku tagto dxy wax aan ka filayno oo u saxan waa inay noo samaysaa waxa loo yaqaano mid kale mar walba waxaa ogaataa descending channelkan suuqan oo kale sababta meeshan lagu celiyo kale haddii aad rabto inaad fiirisid almost waxaa la fiiriya halkan oo kale okay you see here halkan waxaa ka haysanaa meeshaas waxooga ixtiraamay oo ah descending oo ku imaaday isla markaas waa la celiyey laakiin saddex taabasho loo ka samaysana kadib inuu hoos sii aado ilaa hadda waxaa ka hadalnay wax kaliya oo probability dxy inay samayso dxy maxaa kaloo ka possible ah inay samayso oo macquul ay tahay maadaama meeshan ascending lagu imaaday oo intan impulse u dhacay waxaa dxy ka macquula inay halkaas noo samayso waxa loo yaqaano correctionkaas markay noo samayso kadibna oo saddexda taabasho ah kaasina all the way up dxy inay saas kusii socoto inay saas ku socoto meesha ay gaarto kadibna laga soo salgareeyo labadaas waa ka macquul laakiin waxa kaliya ka suganayna waxay ahayd inay noo samayso waxa loo yaqaano qaabkaas inay dxy noo samayso mar walbana suuqana waxaa sameynaa markaa falanqaysanayna waxaa ka bilaabnaa lacagta dxy si aan ula socono lacagtaas jihada weygay ku sugan tahay sababtoo ah lacagtaas jihadeeda suuqa inta badan maamusho laakiin mid ogaada dad badan waxaa jiro oo bear correlations qalad ay ugu jiraan sidoo kale lacagtan la shaqeysa haddii lagu dhaho meesha u dhaqaaqay micnaheeda ma ahan lacagta isku dhaqaaq inay sameeyaan waa laga yaabaa laakiin lacag walba dabeecad u gooniye leedahay ay ku dhaqaaqdo lacag walba waxay leedahay dabeecad u gooniye ku dhaqanto marka waxaa la rabaa lacag walba si shakhsiyan inaad u falanqaysatid adigoo ka fikiraya tii horena maskaxda ku haysta isku jaha iyo kala jaha inay yihiin aad kasii fikiraysa okay meeshan waxaa ku wada ogaanay inay noo samayso dxy 1 hour aad joognaa oo low time framekii ah sidoo kale meeshan haddaa wax idinka tuso meeshan waxaa soo dhacaya mar walba lacagtan maxaa ka suganayn marka waxaa rabay inaan soo jaro suuqii okay suuqii aa soo jaro meeshan impulse soo dhaca halkana correction ka dhacay the same way inay mar labaad dxy ay suubiso ah hadda waxay soo suubiso fiiri halkan ay soo dhaqaaqday inay mar labaad nasaan noogu dhaqaaqdo kadibna meeshaas ay noo gaarto kadibna si nadiif ah ay noogu daadato dxy oo mar labaad impulsigaas inta noo soo dhamaystirto oo halkaas ay noo imaato double buttonkaas halkaas waxa ugu bixinaa lacagta loo yaqaano dxy mar walba waxaa ka suganaa weelkan inay noo samayso correctionkaas inay noo dhamaystirto oo saas ay noogu samayso waxaa taabasho kadibna all way up or down inay samayso okay maxaa inoogu xigo waxa inoogu xigtada waa laba socotaan lacageen mar walba suuqa kusoo diraa lacagta labaad week walba aa fiirsado waxa waaye lacagta loo yaqaano euro usd marka aa imaano week time frameka maxaa ka rabnaa inaan ka fiirino waxaa rabnaa inaan ka fiirino waxa ugu horeeya ay tahay mar walba u jeedin lacagaha suuqa waxa isticmaala waxa loo yaqaan ray lines okay marka dxy euro usd maxaa ka rabnaa ayadana euro usd meeshan waxa ugu jeednaa time framekii ugu sareeyay ee tagta halkaan ay ahayd hadda meesha joogto halkaan waaye okay idinka daleeda waxaan rabnaa euro usd maxaa sameynaynaa markaan rabno inaan falanqaysano waxaa calaamadeysanaynaa meesha ugu sareysay ee suuqa noo joogto anagoo isticmaalayno ray line oo horizontal ah okay meesha ugu hooseysana waa halkaan meesha kale sidoo kalena halkaan meeshan wax ajaa'ib ugu jeednaa haddii ay la aragtaan sida laba socotaan meeshan waxa u jeednaa waxa la candle waxa soo dhacay rejection ah oo ah suuqii in la soo celiyay meesha u socday in laga soo celiyay oo ah rejectionka maxaa kamid ah meeshan candle sticks ka soo baranay videoyada youtube-ka ku jiraan haddii aad taqaanaan waxaa soo baranay candle stick loo yaqaano evening star oo ah wuxuu sameeyaa candle impulse oo bias sameysmaayo candle kale impulse oo dhaxdan body yar ku leh oo waxa sameysmaayo loo yaqaano oo tilmaamayo suuq in meesha u socdo sel ah kadib mid kale kan lamid ah oo body sameysmaayo kadibna kii kale saas u sii socon doona ilaa meesha uu rabo suuq kusii aadi doona marka halkan waxa u jeednaa weegan dheer oo salka ah halkan ku xirmi doono suuqan weeg furmaayo waxaa rabnaa candle kale oo saan oo sel ah inuu noo furmo halkan nooga furmo kadibna saas uu kusii socdo suuqii oo mar walba dalbada noo sameeyo waa marka aad joogno waxa loo yaqaano weekly week walban waxaa la socotaan candlekan weekii hore oo ah candlekan weekii haddana ka faa'iideysanayn weekii soo socon candlekiisa sidoo noqon doono arki doonaa okay waxaad tagaynaa waxa loo yaqaano time frame loo yaqaano day markaa tagana suuqa maxaa ka arkaynaa double topkii kor dxy euro usd ka suganayna halkaan oo ahay waxaa ka suganayna impulsiga inuu socdo isla markaasna halkaas uu noo tago kadibna si nadiif oo noogu soo daato maxaa euro usd ka macquula dhihi karnaa marka haddii taas ay noqoto euro usd waxaa ka possible dhihi karnaa inuu suuqaas intuu sameeyo oo double topkan dhihi rabiga noqda double topkaas inta lagu celiyo euro usd meeshan ascending lagu tago isla markaasna si nadiif ah euro usd noogu soo daadato that's what we need sidoo kale euro usd maxaa ka macquula sidoo kale euro usd waxaa ka macquula laakiin laba mid ogaada marka idin dhahay double top lacagta laga soo celiyaa ina ka fikirtiin al rabaa double top lacagta lagu soo celiyaa qaabkees loogu soo celin tusaale kale
haddii double top lacagta markay tagto oo saas ay ku tagto let me see halkaas saas waa suuq soo daalay oo correction ku soo socday awoodu ku sii dhaqaaqa ma lahan wuxuu ixtiraami doonaa double topkan kadibna wuu ku soo daadan doonaa laakiin dada double top waxay u yaqaanaan suuq waxaa jira waxa loo trade saxan laakiin ku siinaayo entry qaldan sababtoo ah waxaa la mid ah trade-kan oo kale hadduu impulse inta meeshan ku tago ama aan dhaho inuu saan oo kale ku dhacay waxaa inta correction kaaga impulse ku tagay trade line-kaaga waxaa leedahay double top la joogaa la soo celin ma jirto waxaas ma la soo celi karo sababta lagu soo celi karin suuqa impulse lagu imaaday laba mid qaado haddii double top-kaaga la jibiyo oo kaas sugo weys oo ay macquul noqoto inuu mar walba hoos usoo laabto waxaa rabnaa waxaa loo yaqaano retrace candle oo ah kii jibi ina mid lamid intuu soo laabto oo halkaas correction intuu noogu galo kadibna halkaas oo suuqa suus noogu aado waa waxa aan ka rabno inay noo samayso laakiin haddii aad aragtid euro USD oo saas ku socoto oo ascending ka samaynayso correctionka ku tagayso midda kale patternkan loo yaqaan ascending channelka waayo suuq mar walba loogu soo celiyaa oo patternada sidka u isticmaalo oo high probability u qadan maqayn suuqa mar walba in xoog ku socdo wuxuu awood u leeyahay nasasho yar oo gala kadib uu sii socdaa laakiin suuqa hadduu soo daalay oo meel oo imaaday meeshan wuu ixtiraama kadibna waa laga celinaa laakiin suuqa hadduu impulse inta u sameeyey oo correction uu sameeyo sidoo kale maxaa ka macquula euro USD maadaama meeshan waxaa soo dhacay fiir impulse halkan maxaa dhacay correction impulse kala dhacay in halkan haddana correction ay noqoto kadibna euro USD cirka iska sii aado waa wax dhici karo okay euro USD marka daysas ugu soo tagno 4 hour marka imaana maxaa inooga muuqdo euro USD 4 hour igaraal noqdo 10 minutes soo har laba lacagoodna waa falanqeynay 45 minutes kan saas ku dhamaado dadka inta suganeynay marka waxaan sameyn doonaa 10 minutes kan iyo har euro USD lacag kala ku dara kadibna zoom ku soo laabanayna 15 minutes kala waxaan siin doonaa suuqa soddon waxa u reeban doonaa haddii ilaahay ma su'aalaha jawaabaha waa mahadsantihiin inay la socotaan wada fila kulligiin okay hadda maxaa euro USD halkan u jeednaa euro USD halkan waxa u jeednaa waxa loo yaqaano expanding channel inay noo sameysay expanding channel in euro USD noo sameysay u jeednaa expanding channel kana sidiisa maxaa sidoo uu yahay expanding channel kana waa wax sidaan oo kale oo ah saas u sameysmaa saas u sameysmaa suuqi macnaha saas oo kale waa kadibna wuxuu ku tilmaamay inuu sal u socdo hadda meeshan euro USD waxay noo sameysay expanding channel halkan waxa u jeednaa impulse 1 taabasho 2 euro USD maxaa ka macquul maadaama hadda meeshan ka jirto laga soo celiyay waxa ka suganeynaa ayadana inay noo sameyso saan double top kan inay tagto kan inta yaal inay noo ixtiraamto ee noo soo daadato that's what we need haddii ay saan noo sameyso euro USD waxa ka qaadan doona waxa loo yaqaano risk entry ka qaadan doona oo laakiin mid ogaaw haddii ascending kaas ay ku tagto euro USD waxa ka soo qaadan doona waxa loo yaqaano ishek risk entry ka soo qaadan doona sidoo kale haddii taas ay noo sameyn weyso euro USD wax kale ay noo sameyso macquul oo noqon kara maxay tahay waxa kaliya euro USD boqolkiiba 200 kaliya inay noqon karto waxay noqon kartaa inay taas noo sameyso oo noo sameyso waxa loo yaqaano double top keenay ka suganeen inay noo tagto waliba noo tagto ascending waliba ay noo tagto 3 touch double top 3 touch with ascending isla markaasna euro USD inay taas noogu soo daadato halkaasna waxa ka soo qaadan doonaa waxa loo yaqaano risk entry ayadana ka soo qaadan doonaa meesha halkaas markay tagto ina waliba waxa sameyn doonaa marka trade line kan halkaas dhiganayna ilaa almost kadibna saas euro USD ku soo raacno meesha ugu horeysa laga celi karo in halkan tahay 90 ga maadaama la buuxinayo halkan kadib ilaa halkaas oo kale inaad sameeyno waa 700 xoogaa biib waa in euro USD ay sameeyso sababtoo ah meeshan waxa u jeednaa wax ajaa'ib u jeednaa oo ah in halkan noo sameysay laba taabasho waliba ku tagtay taabasho ascending ah isla markaasna ascending ay ku tagtay sidaasna suuqa inuu soo daato euro USD waxa ka suganayna ayadana in weegan intaas ay noo sameeyso sidoo kale euro USD maxaa ka macquul ah haddii 1 hour oo kale aad tagno waxa la rabaa lacagta markaa falanqeynayso suuqa forecasting waxa la jiro forecastingka waa trade-ka si walbo inaad ku fikirtid qaab walbo noqon karo inuu oo ka fakano inaad mar walba qaadatid inaad ka sii fikirtid okay euro USD wax kala ka macquul ah fiirin euro USD waxa kale oo ka macquul ah dhigi karnaa haddii trade line keena halkan noo yaalo ee aan rabno oo halkaas oo kale aageyno let me show you waxaan iska tiro sida loo socotaan sida ugu jeedaan euro USD maxay sameeyay hadda 1 2 taabasho halkan taabashada saddexaad ka suganeen ma la sameyn laakiin impulse soo dhacay correction meesha lagu sameeyay mar walba ogaa trade line ka waxa lagu imaado ka fikir impulse lagu imaado correction lagu kor galay waa lagu jibiyay maxaa macquul ah ayadana oo euro USD kala dhigi karnaa euro USD hadii halkan ay noo sameyso anagu halkan taabasho ka haysano
kana inta halkaas noo tagto haddana intaas noo dhahdo oo saddexdaas taabasho ayadana ka helno halkaana waa ka qaadan karnaa oo sil nadiif oo macnaha maba suganayn taabashadaas labaad iyo taabashadaas double topkaas hore ma suganayn haddii halkaas ay noo samayso correction oo 1 hour oo nadiif ah haddii noo samayso ayadana euro USD waa qaadan doonaa hadduu ilaahay okay euro USD meesha ugu baxo maxaa galaynaa lacag kale oo week aan fursada 6 tops kana waa lacagahan waa qoran kartiin meesha noo wada yaalaan DX waa noo koreyso 1 2 3 4 5 laakiin labadan kala gadaal aa ugu soo dari doonaa okay waxaa hadda weekan arabna lacagaha kala fursadaha zaidka ay ku banaayeen quruxda badan waxaa kamid ah lacag loo yaqaano OUD NZD lacagtan OUD NZD ayadana maxaa ka banaan suuqa fursada aan fiirino lacagtan sida u jeedaan mar walba waxay indaa suuqa trade line-ka waxa saaranaynaa jihada meesha ku imaaday meesha u socdo meesha hadda u socdo labada jiha meesha ku kulmeen su'aasha dhana waxa jira ku sharaxnay oo YouTube ka dhex yaalo waxa rajeenaa inay raastaan hadda suuqa saa u jeedeen inta suuqan waxa waa jiho suuqan waa jiho oo ah suuq ku imaado oo taaydo u socdo anagana waxa sameynaa trade line-ka inta ka soo bilaabanay ilaa halkan saaranay okay maxaa kale meeshan u jeednaa halkan waxa u jeednaa suuq inoo noo sameeyay saddex taabasho halkaas marka ka soo tagna halkan waxa u jeednaa double top mujida waliba double top ka maxay noo sameeyay suuq waxa rabaa deeply ina u fiirisaan rabaa double top noo sameeyay 1 2 double top ka maxaa kale noo sameeyay fiir week dheer noo sameeyay oo noo cadeena suuq in la wareejiyay oo sal la aadiro laakiin hadii tusaale kale impulse markii lagu tagay oo halkaas uu ku xirmay kii kale ma dhigi kartid marka waxa la sameeyay double top kaaga waxa lagu soo celiyay week dheer oo suuqii mar walba sal la soo geliyay isla markaasna kana farmo waxa noo cadeena suuqan mar walba inay sal uu tahay markii la joogo OUD NZD week markii la joogo waxa noo cadeynaysaa inay sal tahay okay day hada imaano euro OUD NZD maxaa u jeednaa wax kale oo cajaa'ib u jeednaa oo ah double top inoo la sameeyay waliba 3 touch mujida 1 2 3 double top was ascending journal lagu tagay isla markaasna lagu soo celiyay suuqii waxa waa trade high probability trade waa ninkii OUD NZD trade ka halas ilaa halas soo qaatay waa u jeedin 200 bib waaye OUD NZD marka maxay noo sameysay double top oo la socoto ascending journal oo waliba with 3 touch confirmation ka haysanaa oo suuqaas inuu sal aadayo okay maxaa kale meeshan u jeednaa 4 hour marka tagno 4 hour marka tagno marka tusaale kale trade line kan suuqa trade oo saddex taabashas kugu sameeyo oo ku soo dhici rabo 9 rule waxa la hajiro ah trade kan meesha u possible horto hadii la celin lahaa hadii kale ilaa sharci inta rabaa inuu dhameystirto ina ka sii fikirtid oo ah in ilaa 9 rule kana hadda 9 rule kan mu dhawo suuqana waa la soo jibiyay meeshan waxa dhacay ascending kala meeshan lagu imaaday suuqan marka maxaa ka macquul 1 hour toos u tagno si lacagta dhan hamar ugu dhamaano OUD NZD meeshan waxa u jeednaa laba mid ka macquul ah ko midda koowaad waxa waaye waxaan idinka tirtiro si nadiif ah aragno zoom ka 3 minutes ka dhiman linkiga hadda ay haysatay ku soo wada laabanaysin insha Allah qofka linkigiisii hore ku soo laabto zoom ka waa sii wadan doonaa suuq falanqeyntiisna qaadan doonaa waa falanqeyn plus 10 okay meeshan waxa u jeednaa in dhaanay haday waxa soo aragnay markii 4 hour ay joognay one day in trade line keeni double top lagu tago koow lagu tagay ascending journal oo saddex taabasho ka helnay suuqina si nadiif loo soo celiyay ninkii riski intraday soo qaatay kulli kuma qasaarin wax fiican mid kale hal mid ogaado dadku waxa jiro suuqan hadda wuxuu u jecel suuq sal u soo socday waa laakiin suuqan muxuu sameeyay noqnoqosho waali uu sameeyay noqnoqosho waali marka qofkaas oo kale qofka dulqaad lahayn halaan inuu ka faa'iideysto iska dhaafay candlekaas xitaa kuma jiray mar walba waxa la rabaa suuqa jihadiisa dad ku saxan yahay trade ka isku mashquulinin dad waxa jira mid trade forex film oo kale u fiirsado oo sas indhaha ku haynaayo 24/7 candlekii dhaqaaqa buu fiirina marka suuqa loo mid qaado inaad trade ka trader ka noqotid oo target yar hada ka iska baxay ama swing trade inaa noqoto trade inta qaadad inaa haysan kartid sidoo hore waxa u laabto trade kan ninkii hadda ku jira hadii trade kan hadda ay rebrand gareeyo ninkii ku jira la dulqaadka ka dhamaan la macnaha u jeeda mid ka hal mid ogaada trade hadii tusaale kale trade hadii inta oo sameeyo correction inta ka soo baxo haddana correction kale haduu sii gal ay aragtid waa macnaha tusaale kale suuqan correction ka soo baxay maxaa ka sugeynaa dhaqaaqa ka sugeyn correction kale haddana sii galay waxa awaan doontaa suuqaas intuu jihadiis ka dhameystirana correction ku socon doona iska raacadi wax ma ka galay tusaale kale saas uu isaga soconaa meeshii saas oo kale ku tagaa hadda meesha maxaa u jeedin meesha maxaa u jeedin fiir suuqii correction ka soo baxay correction la illa meesha u socdo maxaa ku imaada correction ku imaada marka suuqa haduu correction ka soo baxo oo correction kale oo gal ay aragtid jihadiis correction kiisa ku dhameystira rabaa okay iga raal noqdo 1 minute iyo xogaa noo haray lacagtan ku soo gudbinayna meesha maadaama inta ay haysano maxaa OUD NZD ka filan doona weekan maadaama halkan waxa haysanaa saan inoo soo daadatay halkan noo sameys
middle section haysana meeshan wax la dhaho oo ah qayb dhexe oo noo tilmaamayso in macquul ay tahay in input loo celiyo kadibna 1 2 3 ah haysano kadibna cell ay noo aado waa macquul taas weliba high probability trade waa inta risk ka soo qaadan doona suuqa mar alla marka halkaas noo gaaro waxaa kasoo qaadan doona risk entry oo halkaas oo kale kasoo gali doonaa almost sida loo socotaan 20 bib 19 bib ka badsanayaan SL keena kadibna ilaa 90 rule kaas la socon doona waa MS waa 252 bibs waa 252 bib waa haddii aad la socotid oo dulqaad aad leedahay waxaa is leeyahay waxa waaye weelasha ku buuxsamayaan okay maxaa kaloo ODNTD macquul ah inaad sameyso waxaa kaloo macquul ah trade-ka aan ka qaadan doonaa maadaama hadda halka correction uu nagu jiro halkan kor inoo tahay inuu hadda halkaas noo sameeyo saas dhaho mar labaad mar saddexaad saddex taabasho marka halkaas kale ka haysanayna in aydan risk ka soo qaadano oo ilaa meeshan oo 90 rule ka u soo raacno OUD NZD aydan meesha ugu bixina suuqii waqtigu naga dhamaaday aan ku soo wada laabana linkiga